ninba waxa la yiraahdaa xatooyo heerku ka gaadhay xarigan kaba tolo aha kabaha xariga lagu tolo ayuu nud xada waa 3 nud xarigu 3 nud weey oo isku soo han 3 mid xada nacam xatooyo nin xarig ka baxsan way ayaa la yiri waxa tahay madaxa maxkamadda iyo cadaaladda iyo garsoorka erga وعيدي حاجاتنا في الله على ونحرسته كن سجال بقول يلحدني يصدحني قبل يقول تريه اللي راح تبالها الدون وحكوا جرته كواتولة ما حكمت له ترشي إسقوا طلعن كون شيحة بربو هذا حبة حركة هدوبو قتلتلو دقتاسية ماله إن كستبا استيلو وحتاجو هدين ويدو نينك كاجت تجن وقتك بنتني أودين هل كهبل ولا الكيبا إجمودن طلقي هبار باك قدعد قولنا كم جاريسيد إلا أنت عينو قفكي سحدها هالكي سحدها هيد وقتكي سحدها عينو لبيك سنينو قول سيد اللو جاري رنتي وي أدقتها تكلي خلافك يسكت دعا وصوتي تمه وإحنا حاسوس دي مركان آخري تن وضيرو سومالي لانو كلمة دا إلما يريس إن يهابا شري waxa jirtay sheekay Soomaali waxa caan ah diin godgal god goreygal gorey godgal god diingal okay kelmadda waa isdul taagaynaa maanta oo godkan horta yaale ilaan marka khilaaf yimaado waa in dadkii loo gar qaadaa soo diinku naturally wuxuu ku dhalaa god intuu labada lugood ee dambe hog ku qodo ayuu dhalihiisa ku aasa ka bacdi temperature-ka dhulka kuleylka uu mibaxa dhulka ayaa ababiya dhalaha diinka gorayadu ilmeheeda arooriday dhigtaayo awoodigu kul bannaan baan ku ogeyn gorayo marka yaa khaldan marka dacwada yaa hor keena ka wax dulmiya ee gafka geysta ayaa inta badan dacwada ku horeeya ilaa uu og yahay wax la weydiin doono waa inuu ka sii hordagay wuxuu yiri diin baa god iga cali moogaala gabaygan cali mooga geedi wuxuu yiri diin baa god iga qaaday buu goray ku baanaaye garcadaadi bay weyday iyo guurti hawl gale ee godka maalintuu qoday cid baan gorayba weydiin horta intaan gartaba la gelin war goormaad god qodan jirtay oo diin ku haysata nacam keena khaldan hadaynaan qabanin guusha caqabadaha inaga hortaagan bay kamid tahay waan isfahanaan filaya ta kale bulshada qaybaheeda kala duwan maqaaliiro waxaan akhriyay Africa nin la yiri maxay u horumari weeday oo I don't know waxay yiraahdeen Mugabe quotes Africa maxay u horumari weeday baa la yiri wuxuu yiri ninka Afrikaanki mantuu maal leeyahay uu muruq leeyahay uu maskax leeyahay dalal kale u taga hantiilaheedu wuxuu tagaa buu yiri dibadda aqoon-yahankeedu wuxuu tagaa meel kale marka uu maalkii iyo muruqii iyo maskaxdii dhamaysto dhinto yiraahdaa dalkaygii hooyaha laygu aaso waa qabri suu horumari waa qabri suu horumari inta aad xoog leedahay eed awood leedahay ee aqoon aad leedahay ay dadkaaga iyo diintaada iyo afkaaguba ay ku baahan yihiin ee maalinta aad maaragtay ta kale dadkeena dibadda wax ku soo barta intooda badan oo habaarka igu dhacay bullshit Afrikaano nigula soo noqda ee aan tala keenin amba aqli soo kordhinin amba hooyadu ariga ka ooman yahay aan xal u wadin inta joogta oo aan isu roonayn maamulka xilka haya oo aan go'aamadii saxda ahaa amba maaragtay awoodeedii iyo kartideedii aan lahayn iyada lafteedu waa gaababka kamid ah degma la isku laayay practically waxyaabahan arka degmada laba reer baa isku laayay gudoomiyihii baa lagu eedeeyay reerkiina la safatay qiimeyntii markaan u yeedhnay baa qiimeyntii la galay baa la yiri reerkiina aad raacday gudoomiyihii soo yiri oo hadda ayaan raaci lahaa khaladku
ninkaasi jawaabtu bixiyo waa sax because reality on the ground dhulka ka dhacay buu ku sheegay laakiin qofka maamulka ah baa loo baahan yahay inuu ka sii digtoonaado oo inuu qofkani ummadda dhexdhexaad u yahay uu labada islaynaya isagu ka mas'uul yahay marka horeba looma sheegin nabigeena maxamed alayhi salaatu wasalaam baxun lama orane waxa la yiri iqra bismi rabbika alladhi khalaq qofku xilka iyo waajibaadka ta loo dirayo in la isweydiiyaa muhiim mushaharku waa imisa hawl fulintu inta in leeg bay leegtahay haddaad ka bilowdo guul gaari maysid ta kale ummadda Soomaaliyeed caqabada ku ah waxa weeye dhaga adayg ismaqal la'aan ayada quraanka waxay ahayd innal insana lirabbihi lakanud ibn aadanku dhaga adayg inuu yahay ilaahay baa noo sheegay isagoo laba qof ayaa la yidhi ibn aadanka wargeedka un ha cunina wax kasta waa idin fasax geedkii bay cuneen Soomaa Itoobiya maanta 120 milyan khalad intee leeg baad markaa ka filanaysa nacam inaad wanaag iska wada filato dadku iska wada fiicnaado adun baa ku daali ma wada fiicnaanaya dadku natural dhiga adaygu waa wax jira wuxuu carays ciise Soomaaliya dhagale ay dhagaxatii ka adagay taan meel dheer dhowrinay walaalkee dhiigiis iyo dhexdeeda u dhiiranay this is xaqiiqo cad wey qofku markuu kula joogo waa qof fiican waa wax wanaagsan markaynu sidan u wada hadlayno halkan marka laga bilaabo laga baxo automatically qofku wuxuu noqonayaa qofkii kale ka duwan odayaayim waxay dhahdeen jifadii baan nahay oo saaso ku adeer bakoorada weyn maxaa idinka qariyo jifada waa inta yare oo hooseysay bakoorada qashinka taabata halka gudaafada maxaad inoo geysin baan ku bakooradu meenadi dhamaystir ku qurux badnayn wadartaynu ku qurux badanahay kelida kuma qurux badn marka we have to think inaynu taa ku baraarugsanaa ta kale waad garanaysiin gabaygii timacade Allah u naxariistee dul iyo hoosba waan ugu dhagay waa dhagaxeed dadkan la hadlayaa baan lahayn duxiye iimaan bal inay dalfoof tahay aqliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday dihashanaysa hal maalin war isdillay oo isgaraacnay ninna ma tago waan wada joognaa war kullay wada joog haday noo tahay inagoo isu niyadsan inaan wada joognaa walaalayaal miina ka wanaagsanay nacam option يا محايدي تكست فرن تكله دقة أديك يستدلك ما ركتي مركينو ينقو يسون حريسان ويني بيجي وحيد قاسم الله هون حريستين وواحد عبارنا نتيجة ذا كصوب هذا يستدلكني داوي محل ولا لحن تمي وين حوالي يريان وين حضارة بديان نتيجة ذا كصوب هذا من عيب كينو كلك أنا محايتها كو وحيدي وواحد عبارنا قصة اللي ذي صوف مريبتها صعد عيالك واحد بيوه وقصعد عليه بيه عيالك غصب يودده سمدي ضرور لقومه وقصير مويده وحد السمدي بنوع عروتي أقول كي بنوع عروتي أو أنا قوق عن كل جليا لا يسكت صحني لا بدي دارات بانكو خسارة زنا هاي لا بدي دارات با خسارة هنا قاعدين تكله إن كسو جبيني يا وحوي ما دام وقته وين بدن سوقاتي هول ديد هول نعيب Soomaalida hore waxay oran jirtay xaq la laaban xoolo kuma yimaadaan generation ka imika joogay hatta thank you waa sideed xaraf saddex buu qoraa TKS I'm telling you the truth wixii lama helo wadaada waxaan cid ku hawshan wax adduunyadana hawl yaraan lagu helay ma jirto وحي دودان الله ونحرسته سماتنا كي رادية إيه سبنا قاچودا سفرت يبقول يلوك يسودي يجور أنت بواسعد سماتنا كي رادية إيه سبنا قاچودا سفرت يبقول يلوك يسودي يجور سلدا أدق وحي كاغشو يسرن عريود با مرمبو إله سينا يا ومدك تسارة هاي شيء سنسام بيربط أساس مركيتا وأنا تسمر كيدي يدلقات كيدي
iyo maalkii iyo muruqii iyo maskaxday kaaga baahnayd guusha aad rabto inaad gaadho aad u hurta haddii kale guul ma raadinaysid it's a dream waad riyoonaysaa riyaad ku jirtaa ta kale timacda waxa uu yidhi midigtaadu waxay xoogsataa maydha gaajada marka aanad lahayn looma lulamaanka weliga ee magaabada hashaadaa ka roon maydhanaan kale ninka intanoo fooq leh aniga maalinna xabad bariisa yima iibinin intaad leedahay hashaada yar ridaada yar cawsu dhigo oo caana ka maal taadaa ku huran nolosha sidaad u rabto haddaad u weydo waa ku qasban tahay sidaanad jeclin inaad ku noolaato marka waxaa iga dardaarana inaynu inagu isu niyad samaano danteennana ka wada shaqaysano maal iyo muruq iyo xasilooni guushaydu waxay ku jirtaa guushiinuna waxay ku jirtaa aniga ee haddaynu isdillo waxaa la yidhi walaalkaa unbaa kaa dhimay oo kugu dhimay markaynu wada nahay weligeen guul gaadhi mayno kollay saacadihii baa sidaas u yaraaday intaasaan doonaya inaan ku koobo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu